السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. saakay waa axad taariikhduna waa 6 bisha Abriil sanadka 2025. barnaamijku waa kii subaxnimo waa barnaamijkii ugu horeeyay saakay aan idin soo gudbinayno barnaamijyadeena maanta. qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa kamid ah xuutiyiinta oo sheegay in ay la heleen gantaalo markab sahay u siday maraakiibta Mareykanka ee ku sugan badda cas. waliba qaar kamid ah warbaahinta xuutigu waxay leeyihiin dab ayaa ka kacay markii gantaal lala helay markabkii sahayda u waday markabka diyaaradaha xambaara ee la yiraahdo Truman. haddaba maraakiibta Mareykanka oo dib u guratay ayaa la sheegayaa oo ka fogaaday meeshii weerarka xun uu ku qabsaday. xuutiga xaalkiisu halkaa ayuu marayaa. warar faahfaahsan ayaan idinkaga hayaa. ingiriiska oo af labadii qaylinaya maanta kadib markii Israa'iil ay xirtay 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waddanka Ingiriiska oo waliba ka tirsan xisbiga talada haya ee shaqaalaha. wasiirka arrimaha dibadda oo qaylinaya Ingiriiska. haddaba sidee wax u jiraan? Israa'iil maxay ka rabtaa dadka ama xildhibaanada Ingiriiska? haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. magaalada Gazana taangiyada Israa'iil ayaa waxay bilaabeen inay ridaan gantaalo ay ku garaacayaan xaafado ay joogaan dad rayd ah, halkaas oo la sheegay in khasaarooyin ay ka dhasheen. haddaba maxaa keenay taangiyadu inay gantaalo sidaas madaafiica u garaacaan? miyaa hoostooda laga soo baxay? sheeko la yaab leh oo Gaza ka dhacday ayaan iyana barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. Trump oo la kulmaya mudaharaadyadii ugu waaweynaa tan iyo markii uu xukunka qabsaday ee looga soo horjeedo siyaasadihiisa. 10,000 oo Mareykan ah ayaa shalay isugu soo baxay ilaa xalay dhowr magaalo oo ka tirsan waddanka Mareykanka iyagoo ka soo horjeeda habka uu wax u maamulayo Trump. isla markaana qaarkood waxay taageerayeen Gaza iyagoo codsaday in xabadda laga joojiyo reer Gaza. haddaba tafaasiil ku saabsan wararkaas ayaynu barnaamijkeena saakay oo axada idinkugu soo gudbin doonaa. inta aan ku jirno barnaamijka wixii warara ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo. saakay waa axad waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Gaza ayaa la soo sheegayaa saakay taangiyada Israa'iil dhinaca waqooyi bari ee Rafax in ay madaafiic iska wadaan. way kala jeesteen, qaar halkan u tuurayaan, qaar halkan u tuurayaan. war sidee wax u jiraan lama yaqaano. warar hoose ayaa sheegaya in qaar kamid ah muqaawamadu ay u duseen oo meel hoostooda ay ka soo baxeen ayagoo markaa ku baraarugay in hoosta looga jiro. maalmahan waxay wadeen inay soo galaan deegaano ka tirsan Rafax oo ay sheegeen inay amnigooda ku adkaynayaan xuduudaha. haddaba markii ay arkeen Al-Yaasiin oo hoostooda ka soo baxay, taagiyadii nina halkaas oo cararay, midna halkaas, midna gadaal, markaasay waxay bilaabeen lagu leeyahay sida ay wax u tuurayaan, gantaalaha u tuurayaan oo yaabasa. wariyaasha telefishinka Al Jazeera ee ku sugan Gaza ayaa sheegaya in madaafiicdu ay sida roobkii u wadaan. taangi kasta intii ku jirtay baaloota ayuu ridayaa. hadda aan idin la hadlayo hawshaas ayaa socotaa la leeyahay iyadoo khasaaruhu marba marka ka dambeeya uu isa soo tarayo. dhanka kale magaalada xaalkeedu wali waa sidii wax gargaar oo loo fasaxay ma jiraan. xaaladdu markaa halkaas ay maraysaa. raashinku waa sii gabaabsi, dawadu waa gabaabsi, biyihii yaa kusoo darsoomay, biyo la-aan haddana la sheegayaa. meelihii biyaha laga samaynayay oo maaragtay biyaha ay ka helayeen ayaa haddana duqaymo kale lagu sameeyey. dadku marka xaalkoodu halkaas ayuu marayaa. Gaza wararkeeda halkaa ayaynu kaga gudbaynaa. waxaynu u gudbaynaa xuutiga oo wacdara cusub dhigay. saakay Yaxya Sariic afhayeenka kooxda Ansaarullah ee xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa wuxuu sheegay in ciidankooda kuwa sawaariiqda, kuwa diyaaradaha daroonka iyo ciidanka badda saddexdaa jiho ay weerara ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan badda cas, gaar ahaan markabka weyn ee la yiraahdo Truman. haddaba waxaa la sheegayaa inay isticmaaleen gantaalo iyo diyaarado daroonisa ay roobka uga dhigeen. waxa uu dhanka kala sheegay in ay gantaalo la heleen markab
sahay u siday macnaha kuwii meesha joogay ee midkii diyaaradaha xambaarsanaa iyo kuwii waardiyeynaya ma ah markab iyaga sahay u siday hadday tahay hub iyo saanad kale iyo waxyaabo kale iyo u waday oo maraykanku leeyahay oo maraakiibtii u soo socday ayaa siday taa looga adeegtay dhagaha laga garaaca la leeyahay marka warar faahfaahsan dhanka maraykanka weli lagama hayo laakiin warbaahinta xuutiga taageerta waxay leeyihiin waa lala helay gantaalka meel isagoo qiiqaya gubanaya ayaa maraakiibtii kale ay isku dayayeen inay damiyaan marka waxaa leeyahay khasaaruhu wuu sii kordhay waxay dhanka kale xuutiyiintu sheegeen inay yareeyeen weeraradii tooska ahaa ee maraakiibta uga iman jiray inkastoo la sheegayo in weeraradu weli socdaan laakiin waxay yidhaahdeen markii maraakiibtan weerarka aynu ku bilownay weeraradu waa naga joogsadeen awal maraakiibtan hoosta noogu jirtaana garaaci jiray hadda markaan anagu nagta ka dhignay oo maalin walba aan dul saarannahay waxa keliya oo na soo hujuuma hadda waa saldhigyada Cyprus Qubrus meelahaas iyo badweynta Hindiya saldhig ku yaala kuwaasna waa ka adeegan doonaa yidhaahdeen marka saldhigyada diyaarada ka soo kacay ayaana duqeeyay kuwii maraakiibtan saarnaa meelaan saarnay haddaba intaa waa sheegashada xuutiga iyo warbaahintiisa iyo laakiin taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee yiraahdo CENTCOM iyagu wax wara oo ay arinka ka soo saareen ma jiro oo marka ay ku beeninayaan ama ay ku rumaynayaan waxa ay xuutigu sheeganayaan dhanka kale xuutigu waxay sheegeen in 5 weerar saakay la soo qaaday oo axada ciidamada Mareykanka diyaaradahooda ay markaa meelo kala duwan soo weerareen waxay sheegeen jasiirad ka tirsan gobolka Xudayda iyo gobolka Sacda inay markaa weerar ku soo qaadeen oo ay soo weerareen marka waxay yiraahdeen weeraradaasuna ilaa 4 qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday waddanka Yemen sida xuutigu ay sheegeen qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa waxa noo soo socda Israa'iil oo la leeyahay 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayay xirtay waxayna u diiday waddankeeda inay galaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Britain oo isna aflabadii qaylinaya sheekada waxaynu ugu tagi doonaa qaybta dambe ee barnaamijkeena subaxnimo saaka ee axada markan waxaynu u gudbaynaa caalamka waxa ka dhacaya mudaharaadyo wadamadii carabta hadhiin kuwii Yurub hadhiin mudaharaadyo lagu taageerayo Falastiin gaar ahaan reer Gaza laguna dalbanayo in xabadda la joojiyo mudaharaadyada shalay oo sabti ilaa xalay way socdeen waxa soo kale mudaharaadyadu ka dhaceen Israa'iil gudaheeda xalayadii sheegay iyaduna wali way socdaan mudaharaadyadaasu in ay dalbanayaan dadku in nabad la gaaro xabad joojin la gaaro maxaabiista la israafsado booqaas adduunka oo dhan wuu socdaa laakiin mudaharaadyada dhaafay waxay ka dhaceen Mareykanka shalay ilaa xalay 1200 oo mudaharaad oo 10,000 oo qof ay ka qayb galeen ayaa dhowr magaalo oo ka tirsan waddanka Mareykanka ka dhacay Washington iyo New York ayaa ugu weyn aqalka cad Congress-ka meel kasta way dhooban yihiin dadka waxyaabaha la yaab kale ee halka ay ka sheegayeen waxa kamid ah waa khaa'in Trump iyo ninka la yiraahdo maartay ninka iskale shirkadda Tesla iyo Twitter-ka ninka iskale Elon Musk ninka la leeyahay waxay yiraahdeen nimanka waa khaa'imin dadku waxay leeyeen hal badbaadiyo dimuqraadiyad waddankeenu khatar ku jira gacmaha kor u taaga qayliya waa ay ku hayaan waxay leeyihiin nimanka kanu waxay noo horseedayaan hogeenugu sii wadaan hog waa sii taraaraxayna goda ku sii dhacayna dadka say u qaylinayaan waa yaabaysa oo maartay mudaharaadkii u soo bax marka waxa leeyahay mudaharaadkii ugu weynaa abid ee maartay dhaca waddanka Mareykanka oo muddooyinkan dhaca oo Trump looga soo horjeedo ayaa meel walba isqabsaday waliba waxay yiraahdeen waa sii wadi doonaa dadka soo baxaan dheenay isdaba joogan ka dhigi doonaa ilaa aan xukunka ka tuurnay kulay marka ninkii halka waa lagu kacay isaga iyo Musk iyo ragiisi hawsha marka aaday u kululaataan leeyahay gudaha waddanka Mareykanka waliba qaarkood waxay soo qaateen calamada Falastiin
waxay taageerayeen reer Gaza waxayna ku baaqayeen in dagaalka laga joojiyo halkaas buuq fara badan jiray meesha waa la qaylinayay mudaharaadyo odagana waa necab yaa lagu leeyahay adduunka in lagu qayliyo waa xuntahay la yiraahday waxaas loo necab yahay odaga madaxa xanuunay marka waa qayle baabaha uga dhigeen marka mudaharaada lagu baabiyay marka mudaharaadka ka hor jaamacad ayuu ka hadlayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isaguna wuxuu weerar ku qaaday siyaasadaha Donald Trump saan dal laguma hogaamiyo adduunka oo dhan qaylo canshuur dhaaf maarbaartay canshuur saarid kan sameey wadankaas sameey kan sameey wuxuu aad uga hadlay wakaaladda wararka AP oo laga joojiyay aqalka cad inay wararka tabiso iyadoo lagu qasbay waa inaad tiraahdaa maartay kanaalka Mexico meesha ah kanaalka Mareykanka inaad tiraahdo waxyaabo badan wuxuu yiri aan loo baahnayn ayaa meesha ka socdo dhahay marka siyaasadii adduunka waa wareereen marka wadanka wuxuu leeyahay xaaladiisu ma fiicna nimankan wax hogaaminaya oo hadda fursad helay dadku doorteen sida ay wax ku wadaan si caadi ma ahan marka ninkii Trump ahaa isaguna dhibkaas haysta meel walba looga kacay lacagtii dollarka ayd waa dhacday wareer badan jira adduunka oo dhan waa isla qaylinaya mushkilad badan jirta arintii Ukraine oo waa dhamaynaya uu yiri wax dhamaaday male oo markii doorashada uu socday maalmo kooban ku dhamaynaya uu lahaa midii kale Gaza waa ka sii daraysa dadaasi dhimanaya wax uu hadda soo kordhay ninkii odaga ma jirta la leeyahay waliba xaalku waxa sii fogaanaya leeyahay isaga iyo saaxiibadiis isagu way sii kala fogaanayaan haddaba berito isniina ayaa la filayaa ninka sida xafiiska Netanyahu ay sheegeen in Netanyahu uu Washington kula kulmo Trump dhowr arrimood oo muhiim ah waa ogeyn kuwii hore oo ay ka hadleen oo macnaha ku saabsanaa Gaza iyo arrimaha cashuuraha iyo Iran iyo waxa caadi ah laakiin xafiisku sheeko kale dheeraad oo ku soo daray uu leeyahay arinta Turkiga iyo Israa'iil way baqaysaa Turkiga iyo iyadoo inay isku farasaaraan Suuriya marka Suuriya arinteeda waxay leeyihiin Turkiga la hadal macnaha macalinka weyn la hadal Turkiga yuusan Suuriya soo gelin Suuriya duu soo galo anagu khatar u aragnaa marka arrinka iyaduna dood kulula ka dhici doonta oo waxa leeyahay Turkiga laftirkiisu Mareykanku waxa uu diray fariin uu leeyahay Israa'iil hadaysan joojin waxa ay ka wado Suuriya iyo dhul balaarsigan waa galeynaa marka Trump isaga wuxuu yiri bal u kaadi ninka waa iimaana bal waa meeshas xalan gaarina meesha la isku dareerin marka hawsha iyaduna waa laga wada hadli doonaa leeyahay qadar xayisiisa kadib waxaanu galeynaa arinta Ingiriiska iyo baarlamaanka xubno ka tirsan oo Israa'iil lagu xiray oo loo diiday wadanka inay galaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni subaxnimo saakay waa Axad waa barnaamijkii ugu horeeyay ee subaxnimo qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu marinaa haddaba waxaa lagu baraarugay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ingiriiska David Lammy ninka la yiraahdo oo soo dhigay boggiisa Twitterka ama X sheeko ku saabsan laba ka tirsan xildhibaanada wadanka Britain in markaa lagu qabtay oo loo diiday inay galaan Israa'iil waa diiday meel ay ku xanibtay meel ay ku xaraysay magalisiin leedahay maxay u socdeen marka wafdi xildhibaanaha oo ka socday baarlamaanka Ingiriiska ayaa waxay aadeen Israa'iil si ay isu xilqaamaan oo xaqiiqda jirta u soo ogaadaan oo Israa'iil ugu cadaadiyaan inay gargaarka u fasaxdo Gaza joojiso dhibaatada xabad joojin la gaaro sidii maartay maxaabiista ka maqan Israa'iil iyagana loo soo deyn lahaa arrimaha baarlamaanka Ingiriiska wafdi ayay direen oo arrinka maartay soo indaynayeen haddaba wafdigii markaa laba kamida Israa'iil way xirtaan leeyahay waxay tiri wadankan ma galeysaan marka waa ina ka laabataan haddaba marka telefishinka al-Arabiya ayaa wuxuu leeyahay shabakada Sky News ayaa waxay sheegtay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha wasaaradda hijriga Israa'iil
in laba ka tirsan xildhibaanada oo baarlamanka waddanka ingiriiska oo lagu kala magacaabo yuan yank iyo ibtisaam maxamed oo labaduba ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee talada waddanka Britain hadda haya in markaa loo diiday inay galaan gudaha Israa'iil oo la xanibay waa loo diiday waxaana lagu eedeeyay inay ka shaqeynayeen waxyaabo karaahiye ah oo ka dhan ah Israa'iil intii ay joogeen Britain marka ninkii marka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu leeyahay sidaa ma jirto ma naqabato laba xildhibaan oo laba gabdhood oo in maartay sidaa la yeelo qaylo ninkii waa qayli laakiin Israa'iil waxaas ma qorto hadda ka hor maxay sameeyeen gabadhii asalkeed Falastiiniga ahaa ee midowga Yurub xildhibaanadii booqanayay saasoo kale Israa'iil naga noqday ma noo soo gelaysid tabti oo kale waa markaa qofkii muslimnimo ka arkaan xildhibaan wuxuu rabaa hadda ibtisaam maxamed iyo magacyadaas waa dad muslimiina marka maxay yiraahdeen meelaha lagu xanimay dadkii kale oo gala adika naga laabtay wasaaradda arrimaha hijriga qaabilsan Israa'iil ayaa hawsha marka ka shaqaynaysa marka sheekooyinkaas halkaas ay marayaan Israa'iil marka wali wax faahfaahsan oo arrinka ku saabsan aan ahayn inay dadkan u ahaayeen dad Israa'iil nacab oo karaahiyo wax la ka shaqaynayay inay marka ahaayeen ayay marka tiri marka hawsha halkaas ay maraysaa wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo koobay barnaamijkeena subaxnimada inta ayaanu ku joojinaynaa fadlan ha iloobinina inaad fariin iyo aragti waxa qabtaan noo soo qortaan barnaamijkana like gareysaan oo share gareysaan